halkani waa janalka aftahan video production saaxiibada aynu jecelnahay oo dunida meel walba oo aad ka joogtaan waqti wacan ayaanu idin leenahay goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijka habeen wanaagsan oo kamid ah barnaamij siyaasadeedyada xiisaha badan ee ka baxa janalka aftahan video production caawana xiise gaar ayuu leeyahay macluumaadyo ku raali gelinaya ayaad ku maqli doontaan ee u diyaar garooba dhageysiga iyo la socodka barnaamijka habeen wanaagsan balse aan ku xusuusiyo barnaamijkan waxaa si gaar ah u leh janalka aftahan video production waxaana macquula inaad iga dhegeysanayso janal aanan tixgelin copyright-ka isla markaana intuu galo janalka aftahan video production kasoo degsada barnaamijkan iyo barnaamijyada kale xiisaha badan ee janalkaasi uu baahiyo balse aan kula socodsiiye barnaamijkan habeen wanaagsan waxaa gaar u leh janalka aftahan video production ee sidaa la soco imikana saacaddu waxay abaaraysaa waqtigii aad dhegeysan jirteen barnaamijkii habeen wanaagsan anigoo cabdilaahi balwaana ayaa ku sugan xarunta warbaahinta madaxa bannaan ee aftahan video production ay ku leedahay magaalada Johannesburg ee dalka koonfur afrika Somali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah haduunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah haduunshe habeen wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دونيدا ميل والبود إنغا مقليسان وديار جروبا دقيسيغي يلا سعودك برنامج كي هبين وناكسن Somali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah haduunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah haduunshe habeen wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dunida meel walba oo inaga maqlaysaan u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijkii habeen wanaagsan qodobada xilligan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo shaaca ka qaaday in qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho ay ku lug leeyihiin xildhibaanada iyo siyaasiyiinta nacaybka u qaba farmaajo iyo khayre dowladda Soomaaliyana waxay guddi u saartay dhacdadii naxdinta lahayd ee ciidamada AMISOM ay ku dileen askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya qaybta NISA wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliyana waxay go'aan ku gaadhay inay isbeddel la taaban karo ay ku samayso madaxda safaaradaha dowladda Soomaaliya ay ku leedahay caalamka qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan habeen wanaagsan magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan waana mar kale iyo barnaamijkii habeen wanaagsan Somali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah haduunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah haduunshe habeen wanaagsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guddi u saaraysa dhacdadii ciidanka AMISOM ay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya qaybta NISA iyadoo oo dhacdadaasna ay noqotay mid shacabka Soomaaliyeed ku beertay anfariir iyo la yaab maadaama ciidanka AMISOM ay gaareen heer ay ciidamada dowladda risaas ay la dhacaan iyadoo risaastaasna looga baahnaa inay ku difaacaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho AMISOM ayaa lacaga fara badan ku qaadataa sugidda ammaanka gobolka Banaadir oo kaliya iyo qaybo yar oo ka mid ah gobolada ay kula dagaalamayaan argagixisada al-shabaab hase yeeshee markii dhibaatooyinka ama weeraradu ay dhacaan ciidamada AMISOM kama qayb qaataan waa weerarada sida gaarka uga dhaca magaalada Muqdisho qaraxyada inta badan lala beegsado goobaha dowladdu ay degan tahayna AMISOM haba yaraatee wax dhaqaaqa kama samayso sidoo kale iyadoo ay dhibaatadaasi ay jirto ayaa waxaa kaloo barbar yaacaya in ciidamada AMISOM ay gawaaridooda ku jiraan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kama sii darane imika waxay bilaabeen in ay ciidamada dowladda risaas huwiyaan iyaga oo marka dambana leh waxaynu kaga shakinay inay yihiin argagixisada al-shabaab haddaba maanta ayay dowladda Soomaaliya ka warbixisay dhacdadaasi iyo guddiga loo saaray iyo qaabka loo baarayo meeshaas uu ku dhintay nin askariya oo ka tirsanaa ciidanka NISA laba ay ku dhaawacantay dad badan oo kale oo Soomaaliya oo meesha waqtigaas ku sugnaana ay dhibaato ka soo gaartay waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto marka hore inaan u tacsiyeeyo reerkii iyo ciidankii uu ka dhintay ninkaa ka tirsanaa ciidanka NISA waxaan rabaa inaan u rajeeyo in ilaahay degdeg u caafiyo dadka dhaawacmay
shilkaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfo ah markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn ayuu labada ciidan uga dhex dhacay waxaanan isla garanay ka dowladda soomaalida iyo amisom in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato waxaan kaloo isla garanoo aad iyo aad muhiim u ah in ciidamada kala duwan ee soomaalida ama nisa ha ahaadeen ama xoogga ha ahaadeen ama booliiska ha ahaadeen hawsha ay hayaan iyo hawsha amisom hayso ay isu yihiin howlo iskaabaya inaan laga maarmin haddii shilkan oo kala dhaco in si deggan oo mas-uuliyadu ku jirto looga hadlo xal waafiyana looga gaaro sidaa daraaddeed waxaan maanta halkan ugu kulannay saraakiisha nisa taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ambaasadar madeera oo ah madaxa amisom taliyaha ciidanka amisom iyo saraakiishan kaloo dhan inaan arrinkaas erey ku habboon maanta saxaafadda ka siino waxaa noo muddaysan haddii aan la yidhaahdo markay soo dhammaato baaristaasi inaan wax allaala iyo wixii macluumaadahoo nooga soo baxa ku dhisno shilka dhacay daaweyntiisa iyo ka hortagga kuwa ka dambayn kara ereygaas gaaban kadib waxaan rabaa inaan siiyo ambaasadar madeera si uu ereygiisa arrinkan ku aadan uga yidhaahdo ambaasadar soomaali weynay habeen wanaagsan intii habsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii habsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii habeen wanaagsan qodobo xiise badan ayaa fooda idinku soo haya qodobada goordhow aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiga salaad cali jeella oo shaaca ka qaadaya in inta badan weerarada iyo qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ay gadaal ka riixayaan xildhibaano iyo siyaasiyiin nacayb u qaba farmaajo iyo kayri hase yeeshee inta aanan u gudagelin marka hore aan eego wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay isbeddel weyn ku samayn doonto madaxda safaaradaha soomaalida ay ku leedahay dalalka caalamka waxa ay sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda in isbeddel muuqda lagu samayn doono madaxda safaaradaha islamarkaana wax weyn laga bedeli doono xiriirka arrimaha dibadda gaar ahaan xafiisyada dowladda soomaaliya ay ku leedahay caalamka daafihiisa iyadoo dalalka safaaradaha soomaalida ay ka furan yihiinna loo samayn doono guddi si gaara ula socda xaaladda inkastoo qaybo ka midaba lagu dhawaaqay in isbeddel degdega lagu samayn doono wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u muuqanaysa wakhtigan inay usoo jeesatay in ay wax weyn ka bedesho safaaradaha islamarkaana xiriirka arrimaha dibadda ka dhigto mid diblomaasi walba oo matalaya dowladda soomaaliya uu ka soo baxo nidaamkii shalay loo doortay wixii ku soo kordha seefta oo wasaaradda arrimaha dibadda oo dul saaran madaxda safaaradaha soomaalida waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo soomaali weynay habeen wanaagsan intii habsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii habsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii habeen wanaagsan markana siyaasiga salaad cali jeelle oo ka mid ah siyaasiyiinta wakhtigan sida gaarka ula socda xaaladda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana gacansaar dhowla leh madaxda sare ee dowladda gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muddo dheer kadib waxa uu aad uga hadlay qaraxyadii daashaday sanadkii tegay iyo sanadkan caasimada soomaaliya ee muqdisho had iyo jeer qaraxyada ka dhaca caasimada waxaa dusha saarta xoogaga islaamiyiinta mayalka adag ee ka dagaalama koonfurta soomaaliya ee al-shabaab waxaana inta badan lagu saleeyaa in ay dhammaan qaraxyadaasi ay ka qayb qaataan argagixisada oo keliya hase yeeshee salaad cali jeelle arrintii waa uu bedelay waxa uuna yidhi inta badan qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca magaalada muqdisho waxaa gadaal ka riixaya xildhibaano iyo weliba siyaasiyiin aad uga soo horjeeda ama aad u neceb farmaajo iyo kayrre siyaasadda ay dalka ku maamulayaan waxa uu aaminsan yahay salaad cali jeelle in qayb ka mid a qaraxyadaasi ay si toos iyaga u maleegayaan iyadoo inta badanna qaraxyada dhaca uu salaad aaminsan yahay in ay ku leeyihiin siyaasi walba oo wakhtigaasi diidan ah in dowladda siyaasaddaasi
ay dalka ku sii maamusho qof waliba oo kursiga loo diido waa sida uu hadalka u dhigay Salaad Cali Jelle waxa uu inta badan ku mashquulaa inuu fududeeyo qaraxyada argagixisadu ay wadaan isla markaana waxa uu ka qayb qaataa inuu ku hago goobaha lafdhabarta u ah magaalada Muqdisho haddii geeri iyo dhibaato dhacdana waxa uu soo istaagaya ayuu yiri saxaafadda markuu qarxu dhaco waxyeello geystana isaga qayla dhaaminayo waxa uu leeyahay dawladdu waa inay iscashisaa aaway amaankii maxaa wax looga qabo waayay isagoo dawladda ka tirsanna asaga ayaa fududeynaya waa siduu Salaad Cali Jelle aaminsan yahay waxa uu shacabka Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan farta ugu fiiqaya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda siyaasadda farmaajo iyo khayre in iyagu mas'uul ka yihiin waqtigan qaraxyada ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qarax walba markuu Muqdisho ka dhacana eedu iyaga ayay u badan tahay oo had iyo jeer waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya amaanka iskama xil saarto ma samayso sida ay amaanka ku sugi lahayd sidee loo sugaya waa siduu Salaad aaminsan yahay hadiiba xubno ka tirsan dawladda iyo siyaasiyiin Muqdisho laga aaminsan yahay iyagu ay fududeynayaan qaraxyada iyo weerarada eedaynta Salaad Cali Jelle ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Muqdisho ay daashatay qaraxyo sanadkii tagay ilaa iyo sanadkan iyadoo dawladda Soomaaliyana lagu soo dhaweeyay geeri aad u fara badan iyo dhiig daatay caasimadda Soomaaliya waana tan kaliftay Salaad Cali Jelle waqtigan inuu yiraahdo mucaaradka dawladda ayaa la shaqeynaya argagixisada al-shabaab wixii ku soo kordha barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii habeen wanaagsan dhegeysto waad ku mahadsan tahay dhegeysiga la socodka barnaamijka intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doonana waa Cabdullaahi Bilwaan oo idinku dhaafaya habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan ahlu marqaanka intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah hanuunshe habeen wanaagsan